aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan shirkan ka soo qayb galo qiimaha leh oo beeshii hawiye ay isugu timid hadda wixii wadidiisa warkii oo dhan waa la sheegay waxa loo baahan yahay iyo wax walba waa la sheegay dad aqoon u leh waa tilmaamay waxaan ka bilaabi lahaa horta dadka Soomaaliyeed hawiye intee ka yahay tiradiisa intee ka yahay waxaa la yiri markii tirakoob markii la sameeyey boqolkiiba 38 dadka Soomaalida oo jamhuuriyadda ku nool waa hawiye waxa ku xiga dadka Isaaq la yiraahdo oo boqolkiiba 25 ah waxa ku xiga dadka daaroodka ah ee jamhuuriyadda ku nool oo boqolkiiba 18 ah marka hadde waxa weeye 38 iyo 18 waxa u dhaxeeya waad u jeedaan marka waxa weeye dadka majority-giisu waa hawiyuhu marka sida sharcigu qabo waa inuu majority-ga hogaamiya waa inuu hogaamiya hadda tirana waa leeyahay tayana waa leeyahay laakiin tawfiiqdii ayaa marmarka qaar wax ka jireen haddii maanta halkan lagu heshiiyey oo la isku raacay alxamdulillah waa fursad timid oo maaragtay u ogolaanaysa hawiye inuu asagoo tiradiisa iyo tayadiisa ka faa'iidaysanaya oo beesha Soomaaliyeed hogaamiyo bulshada Soomaaliyeed inuu hogaamiyo waxa weeye marka aan leenahay hawiye kaliya nama deeqo hawiye waa inuu Soomaali raadiyaa ma garanaysaa oo Soomaali weyn asagoo ku raadinaya waa inuu midnimadiisa ku raadiyaa iyo kartidiisa iyo awoodiisa marka hawshaas oo halkaas ay taallaa marka maxaa loo baahan yahay in xuquuqdayadiina aan raadino tii dadka kalena aan raadino oo maaragtay oo hormuud u noqono Soomaali weyn wax ka yar nama deeqaane in Soomaali weyn aanu ku raadino badana iyo tayadeennaba ma garanaysa marka waxa weeye hagi dheeraa oo soo galnay mirihiisi ma aanan helin lama helin waa la xaqiiq taasuna maxaa ugu wacan waa tawfiiqda naga maqnayd ayaa keenaysay marka haddaan maanta isku tawfiiqnay waa in xuquuqdayadii la helaa oo raadsanaa magaaladan muqdisho waxaa muddo dheer ayay dhibaato ku jirtay oo la isku dhex dilayay oo la dilay guryaheeda iyo dadkeeda iyo madaaficiya balaayo la dhacay haddana way adkaysatay magaalo waxa weeye geesi ah magaalo waxa weeye dulqaad leh magaalo waxa weeye raxmad leh marka magaalada waxa la rabaa in munaasabadeeda horta loo aqoonsado magaaladii geesinimada inay tahay magaaladii geesiga gorod giroy garanaysa dadka jooga ahuna inay arrintaas ka shaqeeyaan waxaa kaloo jira annagu marka xuquuqdayada raadinayno waa inaan xuquuqda dadka kaloo saaxiibadeennana ayadana sugnaa waxaa jira gole la yiraahdo golaha sare ma garanaysaa baarlamaanka waxaa golahaas guddoomiye ka ah nin la yiraahdo Cabdi Xaashi Cabdullaahi ninkaasi waa nin wadani ah waa nin aan asagoo kale la arag
waa nin maaragtay markii wuxuu u dhashay waqooyi saad ogtihiin laakiin waqooyi kaliya kuma eka markii la kala cararay asagu waa haray halkuu ku nagaaday marka ninkaas anigu waxaan soo jeedinaya oo hooyo u soo jeedinaya in loo aqoonsado inuu yahay senatore oo vita senatore a vita la yiraahdo senatore joogta ah oo warigiis jira oo aan ku xirnayn kootada isaaq iyo dir iyo aan ku xirnayn soo oo taagan in lagu amaal mariyo ayuu mudan yahay ninkaas marka asaguna inuu maaragtay Soomaali weyn oo u noqdo maaragtay senator u noqdo asaga iyo ragii kala soo raacay doonaba inay senatoriyaal u noqdaan Soomaali weyn raadinteedii oo wakiil ka noqdaan oo isu doonaan shantii Soomaaliya maaragtay in la isu raadiyo waxaan aad ugu faraxsanahay dad badan baa maaragtay maanta diyaar u ah in midnimadii la sugo waxaad arkaysaa dad shalay xaggaas jiray waqooyi Soomaaliya oo maaragtay haddana markii hore aad iyo aad uga soo horjeeday midnimada oo maanta soo noqday dib u fakiray maaragtay diyaar u ah in midnimadii la sugo waxaan maqlaya oo jira dhalinyaro reer waqooyi ah oo Ingiriiska degan oo dhahaya mashruuc la yiraahdo ay wadaan hadda iyo midnimo ma garanaysaan waxaad kaloo arkaysaa TV Kenya xaruntiisu tahay oo la yiraahdo TV-ga shanta Soomaaliyeed TV-geeda ma garanaysaa waxaad arkaysaa dad badan oo shalay xaggaas jirayo oo aad iyo aad uga soo horjeeda midnimada oo dib u fakiray oo ma garanaysaa midnimadii maaragtay ay la macaanaatay oo diyaar u ah inay midnimadii soo celiyaan waxaan maqlayay madaxweyne asaga laftiisu ay ka muuqato ninka inuu dib u fakar xoog leh inuu ku jiro wuxuu yiri oo kelmadiisa kamid ah waariyan dhow ayaan markii uu tagay Kenya ayaa la wadiyo waxa la yiraahdo Kenya waxay ku soo dhaweysay in jamhuuriyadda Soomaaliya dhinacaas koonfurta inay ayaa dagaal kala dhaxeeya arrintaas ka war wuxuu yiri annagu xuquuq waa raadsanaynaa laqaqeen xuquuqdayada marna kuma raadsanayno in Soomaali kale la karbaasho martaas xuquuq waxaan doonaynaa ma ahan yiri in Soomaali kale la karbaasho ma jirto wuxuu kaloo yiri mar la yiri Soomaali war aniga nin iga Soomaalisan adduunka kuma noola waa kelmado maaragtay qiimo leh madaxweyne Cigaal wuxuu yiri Allah u naxariiste asagoo Hargeysa aan ugu tagno oo shiriyay dad badan oo isaaq ahaayo waagaas ka cadsana wuxuu yiri sida aan wadkayga sida aan u hubo ayaan u huba in Soomaaliya isku soo noqonayso marka kelmadahaas wax ku oolka ah oo dhan ayaa meesha yaala garanaysaa marka waxaan dhihi lahaa ma garanaysaa magaalada Mogadisho ma garanaysaa maalintii taariikhdu ahayd 5 Abriil 1908 markay ahayd taariikhdu 5 Abriil ayaa caasimad loo aqoonsaday